بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا وناكسن صاحبة قيمة هي قدرتين كمدن ملك سواد جوكتانية ولي بس كسود نولا سعوتان با قوض بدن ورك كوي دوننا وحكم النقانية أحمد مدوبي أو كبد بادي اسكودي لوجو حري الربي iyo waliba ciidamo ugu galay hoyga uu ka deganaa gudaha Muqdisho waxaan idin soo gudbin doonaa ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo howlgal qorsheysan ka sameeyay hoyga hogaamiye Midoobe uu ka degan yahay gudaha Muqdisho iyo xabsi uu ka badbaaday qodobada kale aan eegi doonana waxa ka mid noqonaya haddaba maxaa ka soo baxay kulankii gudaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaan soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ka warbixiyay diidmada dan iyo Midoobe ee doorashada Soomaaliya iyo waliba xogo ku saabsan ee arrimaha doorashooyinka uu ku soo bandhigay fadhigii golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo shaaciyay go'aanka laga filayo ICJ iyo waliba warbixin ee ku saabsan kiiska badda Soomaaliya oo ka horjeediyay fadhigii golaha wasiirada waxaan idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo shaaciyay xog kale oo ku saabsan arrimaha badda Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka oo shaaciyay in Soomaaliya deynta laga cafinayo bishan Abriil gudaheeda kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shaaciyay inuu kulan gaar la qaatay wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka warbixin oo Beyle soo bandhigayaan soo qaadan doonaa iyo sidoo kale waxaan warka ku eegi doonaa go'aano saacadaha nagu soo aadan laga filan karo dawladda Soomaaliya kuna saabsan xayiraad lagu soo rogayo hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland saaxiibada qiimaha iyo qadarinteena mudan doodana waxay noqonaysaa qaybta commentiga ku eegi doonaa أحمد مدوبي hogaamiyaha Jubbaland wuxuu ka badbaaday isku day lagu xiri rabay sida wararku sheegayaan kaasoo afduub markaasi loogu geysan rabo gudaha Muqdisho adiga ma jeclaaleeh daawada in hogaamiye Midoobe xabsiga loo taxaabo aba la afduubo abay xiran ciidanka qaranka Soomaaliya ku sugan Muqdisho fikirkada qaybta hoose noogu soo qor maadaama xubnaha laga kari laayahay ka qayb gala shirka doorashooyinka ee badbaadiya masiirka ummadda Soomaaliyeed oo malaayiinta ah kuwaasoo ka dhor sugaya in dalkan ay doorasho ka dhacdo fikirkada qaybta hoose noogu soo qor sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed Qadar war farxad la ka dhawaajiyay waxaan uu shaaciyay in ICJ laga sugayo go'aanka ugu dambeeya bilaha nagu soo aadan iyo sidoo kale in kiiska badda oo dhinaca Soomaaliya u dhici doono qodobada kalena ka soo aragti dhiibo iminkana ku soo dhawaada qodobadii aan dul maray oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena wararka Muqdisho iyo hogaamiye Midoobe ayaan ku bilaabaynaa hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe ayaa ka badbaaday isku day lagu xiri rabay aba lagu afduubi rabay sida wararku ay sheegayaan kadib markii hoyga uu ka degan yahay gudaha Muqdisho ay howlgal ka sameeyeen ciidanka nabad sugidda Soomaaliya wararka laga helayo xarada xalana meel u dhawaayay waxay ku soo waramayaan in hogaamiyaha Jubbaland oo ka badbaaday afduub ay u geysan rabeen ciidanka nabad sugidda Soomaaliya kadib markii lagu arkay isagoo markaasi logeynaya meel u dhow meel howlgal ka sameeyeen ciidanka nabad sugidda Soomaaliya isku dhac kooban oo dhaxmaray ciidamada ee waardiyeynaya hogaamiye Midoobe iyo ciidanka NISA ayaa la sheegay in hogaamiyaha Jubbaland lala cararay kadib markii ciidanku isku dayeen in gacanta ku soo dhigaan xabsigana u taxaabaan ee taasoo la sheegay inuu ka badbaaday afduubkii ugu weynaa ee la dabacsanaa hogaamiye Midoobe wararkan oo inuu ka soo xignay saraakiil nabad sugidda Soomaaliya balse saxaafadu aysan ogaanin ayaa waxa lagu soo waramayaa in hogaamiyaha Jubbaland saacadihiina soo dhaafay oo ka badbaaday shirqoolkii ugu weynaa ee loo dhigay taasoo ka dhigan mid ciidanka NISA ay ku afduuban rabeen kadib markii howlgalla ay ka sameeyeen meel u dhow hoyga uu degan yahay wararka qaar baa sheegaya in ay isku dhac kooban u dhaxmaray saraakiisha ee nabad sugidda Soomaaliya hogaaminayay iyo sidoo kale ee xubno waardiye u ahaa hogaamiye Midoobe ma cadda dalabkan iyo sidoo kale in markaasi hogaamiye Midoobe uu ka carari doono gudaha Muqdisho in kale balse warar aynu ka soo xignay saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in hogaamiyaha Jubbaland laga cabsi qabo in weerar lagu qaado hoyga uu ka degan yahay Muqdisho kadib markii lagu soo eedeeyay qodobo dhowr ah iyo sidoo kale inuu jaajuus u yahay dawladda Kenya isagoo xogaha Soomaaliya u gudbiya ee dawladaha diidan doorashooyinka iyo horumarka Soomaaliya qodobadana kale ayaan guda galaynaa haddaba maxaa ka soo baxay kulankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay maalintii shalay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka dhawaajiyay qodobo dhowr ah iyo xalka doorashooyinka meesha uu marayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee ku qabsoomay habka fogaan aragga loo yaqaano ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shirka uga warbixiyay xalka ay marayaan dadaalada markaasi iyo wada hadallada arrimaha doorashooyinka dalka ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shirka golaha wasiirada siiyay warbixin la xiriirta dacwadda badda Soomaaliya ee dhawaan ay dhageysatay maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay ICJ shirkan ayaa sidoo kale looga dhageystay warbixin la xiriira amniga dalka iyo dadaalada dawladdu ay ku xakameynayso caabuqa COVID-19
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka dhawaajiyay in meel wanaagsan ay marayaan wada hadallo hordhaca oo u socda isaga iyo hogaamiyaha Jubbaland iyo hogaamiyaha Puntland sida uu ka dhawaajiyay Rooble wuxuuna golaha wasiirada u soo bandhigay cadeymo waaweyn oo muujinaya in wada hadalladan laga fila karo miro dhal iyo sidoo kale in kulan wada jir ay wada qaadan doonaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kaasoo ku sheegay mid lagu soo afjaray khilaafka doorashooyinka daba dheeraade iyo sidoo kale xalka ugu dambeeya shacabka ay sugayaan maxamed xuseen Rooble ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in loo midoobo midnimada iyo jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya ee dalkana laga badbaadiyo cid walba ee ku soo duushay iyo sidoo kale cid walba ka soo horjeeda fikirka dawladda Soomaaliya ay faafinayso ku aadan in dalkan doorasho laga qabto labada hogaamiye ayuu ku eedeeyay Jubbaland iyo Puntland in ilaa iyo hadda ay xalka doorashada diidan yihiin iminkana loo baahan yahay in loo tanaasulo sida ugu badan dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inay tanaasulkii ugu weynaa ay muujisay balse aysan jirin hogaamiyaashaasi hal qodob oo ay ka tanaasuleen oo ah qodobadii la isku hayay kuwaas oo ku sheegay inay muhiim tahay in samirka dawladda Soomaaliya iyo dulqaadkeeda loo tixgeliyo ee loona midoobo sidii meel loogu soo warjeesan lahaa cid walba ka soo horjeeda horumarka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu sidoo kale soo bandhigay in dawladda Soomaaliya ay guul weyn ka fila karto aba dadka Soomaaliyeed ay guul ka fila karaan ICJ waxaana uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay maalmaha nagu soo aadaan ay maqli doonaan war farxad leh isagoo soo bandhigay cadeymo waaweyn oo laga hayo dawladda Kenya wuxuuna shacabka ugu bashaareeyay in ICJ bilaha nagu soo aadan ay ku dhawaaqi doonto go'aankeeda ugu dambeeya ku aadan ee kiiska dacwadda badda maadaama ay dhageysatay warbixinta Soomaaliya Kenya lagu tilmaamay kuwa tuuga oo duulaan ku soo qaaday biyaha iyo bariga Soomaaliya qodobadana kale ayaan sii gudagalaynay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ayaa shaaciyay in Soomaaliya deynta laga cafinayo bishan April gudaheeda iyadoo wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu ka dhawaajiyay inuu kulan gaar ah la qaatay wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka hadlay shir uu kaga qayb galay aaladda Zoom-ka la yiraahdo oo markaas dhaxmaray isaga iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka iyo hay'adaha lacagta adduunka waxa aan maanta ka qayb galay shirka sanadlaha ee IMF iyo sidoo kale World Bank oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wasiirada maaliyadda dalalka Carabta shirkan ayaa socod doona muddo toddobaad sidoo kale waxa aan si gaar ah markaas aan shir ula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale xubno kale oo ka mid yahay agaasimka IMF iyo sidoo kale xubno kale shirkan waxa aan diiradda ku saarnay arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo dhameystirka hanaanka deyn cafinta ee saameeyay cudurka COVID-19 dadaaladii miro dhalay ee wasaaradda maaliyadda iyo dib u habeynta dhaqaalaha waxaan markaas inoo furan albaabada caalamka iyo sidoo kale garab istaagga Soomaaliya loo muujinayo waxa uu sheegay in loo ballan qaaday Soomaaliya in bishan April gudaheeda ay guul ka gaari doonto arrimaha deyn cafinta dalkana laga cafi doono guud ahaan deymaha lagu leeyahay taasoo ugu bishaariyay dadka Soomaalida wasiir Bayle ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay u marayaan kulamadan iyo shirarkan sii socod doona isbuucan gudihiisa waxaana uu sheegay in marka la soo gabagabeeyo warbixin dhameystiran uu u soo gudbi doono shacabka Soomaaliyeed taasoo ku aadan ee qaabka markaas Soomaaliya deynta looga cafinayo gaar ahaan deymaha ku hersan oo ay ku leeyihiin hay'adaha lacagta shirka wasiir Bayle oo ka qayb galay ayaa lagu tilmaamay mid markaas gabagabo u ah deyn cafinta Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay noqon doonaan kuwa markaas ka faraxasha deymaha faraha badan ee wadamada ay ku leeyihiin taasoo ka dhigan mid lagu bogaadi karo dawladda oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo doorka ay ka qaadatay deyn cafinta Soomaaliya ugu dambeyntiina go'aano xasaasiya ayaa laga filanaya dawladda Soomaaliya saacadaha nagu soo aadan kadib markii la shaaciyay in heshiis ay wada gaareen qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale kulan gaar ah la qaatay Iswoon kadib kulankii aba fadhigii qaramada midoobay kaasoo la sheegay in Rooble iyo Iswoon ay isla meel dhigeen in xubnahan doorashooyinka diidan ee ku sugan dalka ee go'aan laga gaaro qaramada midoobay ay taageerto go'aankaasi la gaarayo lama oga go'aanka wuxuu noqon doono balse saacadaha nagu soo aadan ayaa la filanayaa go'aanka ugu dambeeya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale in dawladda Soomaaliya ay qaado tallaabooyin waaweyn oo dalka u horseedaya guul iyo sidoo kale in doorasho la aado aba la cuna qabatayo hogaamiyadani iyo hogaamiye midoobe oo ayagu dhuunta u galay shacbiga Soomaaliyeed oo u xayiran muddo bilooyin saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan subscribe noo saar share gareeya oo muuqaaladan saaxiibada kala gaarsiiyay si ay kula daawadaan like tahnagii loobin comment-iga noogu soo qor qaybta hoose adigoo fikirkaada ku cabiraya
warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa nabad gelya saaxiibayaal.